السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسر هذا برنامج كنا مع المهد الدنيا وستوصين كجيماني استوديو هنا كلنا مقالة لندن. وحنا برنامج كسر قادنا وربحنا يورك اللي قديسنا وكسر بسند عدوين كالدنيا وربحين تعاون برنامجكم كوجهنا أي واحد تهورك قدام بيه كإيمانية مقالة غزة دول كفلسطينيين تا. وحنا وربحنا ذا كإيمانية مقالة غزة الشيء ساين عيد ماذا إسرائيليين تو أي جدها أوجلين إسبتال كوجوين مقالة غزة الشفا. iyadoo Israa'iiliyiintu ay sheegeen in ururka Hamas ay xarumo ku leeyihiin gudaha isbitaalka weyn oo ay beeniyeen arrintaas mas'uuliyiinta ururka Hamas marka si guud marka loo fiiriyo xaaladda ka jirta magaalada Gaza iyo guud ahaan isbedelada dhacaya waxay ciidamada Israa'iiliyiintu ay galeen gudaha isbitaalka weyn ee Al-Shifa oo ah isbitaalka ugu weyn oo ku yaala gudaha magaalada Gaza isbitaalkaas oo ay ku xareysnaayeen gudihiisa tirada gaaraysa 2500 oo qof dadkaas ku xareysan isbitaalka gudihiisa 2500 oo qof oo kamid ayaa waxay yihiin dad dhaawacyo ah oo waliba dhaawacyo halis ah dhaawacyadaas halista oo la geenayo meelo kala gedisan iyo isbitaalada ku yaala gudaha magaalada Gaza ayaa iminka waxa muuqata inay adag tahay in la geeyo isbitaaladii waaweynaa sida waliba isbitaalka Al-Shifa iyadoo horena in badan oo kamid isbitaalada ay burburiyeen duqeymaha ciidamada Israa'iiliyiintu ay la dhacayaan magaalada Gaza ciidamada Israa'iiliyiinta ayaa qolqol u galay gudaha isbitaalka weyn ee Al-Shifa ee ku yaala magaalada Gaza iyagoo sheegay in ururka Hamas ay saldhig ku leeyihiin gudaha isbitaalka iyo qaybo kamid ah taasna ay beeniyeen ciidamada iyo mas'uuliyiinta ururka Hamas dhinacyo kale gadisan warbixinta markaynu ku eegno iyo wararka ka imaanaya magaalada Gaza ayaa sidoo kale waxa xusid mudan in dhaqaatiirta ku sugan gudaha isbitaalka magaalada Gaza ee Al-Shifa ay la kulmeen cadaadis kulul iyo waliba jirdil kaga yimid ciidamada Israa'iiliyiinta halkii injineer ka shaqeynayay isbitaalkana ay xireen ciidamada Israa'iiliyiinta iyadoo la arkay muuqaaladii iyo sawirradii ugu dambeeyay ciidamada Israa'iiliyiinta oo dhex lugeynaya qolqolna u galaya isbitaalka Al-Shifa ku yaala magaalada Gaza dhanka kale waxa xusid mudan in ciidamada Israa'iiliyiintu ay hareerayeen guud ahaan isbitaalka iyo waliba deegaanada kale ku hareeraysan isla markaana ay ku xireen gudaha isbitaalka kaamirooyin kala gedisan kaamirooyinkaas oo ugu talagaleen sida ay sheegeen inay kula socdaan dhaqdhaqaaqa ka socda gudaha iyo agagaaraha isbitaalka iyagoo sheegay in dhulka hoostiisa isbitaalka dhulka hoostiisa ah in ay ku leeyihiin xarumo ciidamada ururka Hamas waa sida ay sheeganayaan ciidamada Israa'iiliyiinta taasoo ay aad iyo aad u beeniyeen ciidamada iyo mas'uuliyiinta ururka Hamas ciidamada Israa'iiliyiinta ayaa sidoo kale duqeymo joogta la beegsanaya magaalada Gaza duqeymahaas oo kaga imaanaya dhanka bari dhanka galbeed dhanka waqooyi iyo dhinac kasta cir dhul iyo bad duqeymahaas oo ay ku beegsanayaan guud ahaan magaalada Gaza ayna sheegeen in ay ku raad joogaan waxa ay sheegeen sida ay u soo badbaadin lahaayeen dadka la haysto inkastoo ay dileen in ka badan 11,000 oo qof oo shacaba oo u badan haweeney caruur oo waliba 4,600 kamid ah dadkaas ay dileen ay yihiin caruur halka 3,100 kamidna ay yihiin haween waxyaaba marka la yaab kale dhacay ayaa waxa kamid ah in ciidamada Israa'iiliintu markay gudaha u galeen isbitaalka weyn ee Al-Shifa ay si xoog ah ay jirdil ah iyo hanjabaad leh ay maaragtay ula dhaqmeen dhaqaatiirta ka howlgasha gudaha isbitaalka isla markaana ay sameeyeen xiritaan ay xireen qaar kamid ah injineerada ka shaqeynaya isbitaalka weyn ee Al-Shifa ee magaalada Gaza hadba xaaladdu sida noqoto iyo warbixinada kale ee naga soo gaara magaalada Gaza hadba waxaanu kula socodsiin doonaa barnaamijyadeena iyo wararkeena dambe haddii ay beedmo waxaan ila socodsiinaa warbixintan anigu ah Maxamed Saciid saxaafinteena ku kulmayno warbixinteeda xigta iyo warbixinada kaleba waxaanu codsanaynaa daadash inay nagala socdaan barnaamijkeena maalmaha dunida iyo baraha aynu ku leenahay barta internetka qaybta hoose ee shaashada barnaamijka aad ka daawan kartiin meel walba dunida ka joogtiin waxaanu leenahay sidaas iyo nabadgelyo